واتهاي آدي آد يضمها سنتهاي سيدا أد هريبا u sheegtay maalmahani waxaa socday shirar heer caalami ah kuwaasi oo ay ka qayb galayeen wafuud aad u ballaaran oo ka kala socotay qaaradda Afrika iyo waliba wadanka Shiinaha haddii aan ku horeeyo shirka wasiirada arrimaha dibadda wadamada qaaradda Afrika iyo sidoo kale Shiinaha ayaa waxa uu ka furmay magaalada Pretoria ee dalkani Koonfur Afrika shirkaasi waxa uu ahaa mid hordhac u ah ama gobol xaar u ah shirka madaxda Afrika iyo Shiinaha shirkaasi waxa ay si wada jir ah u furay wasiirada arrimaha dibadda ee dalkani Koonfur Afrika iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha dhanka Soomaaliya waxa uga soo qayb galay wafuud oo hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya mudane Cabdisalaan Hadliye Cumar hadliye ayaa TV-ga Universal oo qayb ka ahaa warbaahintii ka qayb qaadanaysay barnaamijkaasi kula hadlay gudaha shirka waxa uu faahfaahin ka bixiyay bal muhiimadda ay u leedahay dawladda Soomaaliya iyo qaabka ay uga soo qayb galeen shirkaas shirkan waxa iskugu imaanaya dawladda China iyo Afrika waxaana laga wada hadlayaa sidii barnaamij loo sameeysan lahaa amba horumar looga wada hadli lahaa sanadaha soo socda naga hadda maanta waxa weeye shirkii wasiirada waxa hogaaminaya wasiirada arrimaha dibadda waxa jooga sida walaalka Cabdirashiid oo kale wasiirada ganacsiga iyo wadamada qaarkoodna waxay keeneen wasiirada maaliyadda waxaan rabnaa inaan kala hadalno dawladda Chinese-ka bal wixii sidii Soomaaliya aan xiriir dheer baan leenahay dadka Chinese-ka iyo dawladda Chinese-ka intaasi kadib ayaa sidoo kale waxa ka furmay shirka madaxda Afrika iyo Shiinaha Suntown hoolka shirarka ee Suntown ee duleedka magaalada Johannesburg waxa shirkaasi ka soo qayb galay inta badan madaxda Afrika iyo waliba madaxweynaha dalka Shiinaha Jinping madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa shirkaasi furay waxa uuna ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Shiinaha oo khudbad ballaaran halkaasi ka jeediyay ayaa khudbadiisu waxa ay ku qotantay sidii maalgashi iyo dhaqaale uu u sii lahaa qaaradda Afrika isagoona madaxweynaha Shiinaha ballan qaaday in uu qaaraddan Afrika uu sii doono lacag dhan 60 bilyan taasi oo uu ku maalgelinayo qaaradda tan Afrika qaarkeedna uu ku magacaabay in uu si deeq ah u gaarsiin doono qaaradda tan Afrika waxa uu madaxweynaha Shiinaha uu afka ku dhuftay in maalgashiga wadanka qaaradda Afrika uu sameeyo markii laga soo tago uu sameey doono dib u dhis xoogan oo ku sameeynaya qaaradda haddii aan eegno wadamada uu sida gaar ka ah madaxweynaha Shiinaha uu isha ugu hayay waxa kamid ah wadankani Koonfur Afrika oo xiriir ganacsi oo aad u ballaaran ay wadaagaan dalka Shiinaha sidoo kale waxa uu madaxweynaha dalka Shiinaha uu markani uu danaynayaa in uu maalgashi xoogan oo ku sameeyo dalkani Koonfur Afrika ay bahwadaaga yihiin ee Zimbabwe oo haatan xaaladiisa dhaqaale ay tahay mid liidata intaasi kadib waxa madaxda Afrika oo gaarayay 48 xubnood ay u wakiisheen in uu u mahad celiyo madaxweynaha Shiinaha madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe isla markaana ahaa ninka ugu da'da weyn ee shirkaasi madaxweyne Mugabe ayaa waxa uu si dheer u sharaxay waxa uu yahay Shiinaha isagoo tilmaamay in Shiinuhu uu waligiis isku dayin in uu gumeysto wadanka Afrika isla markaana uu doonayo in uu maalgeliyo arintaasi uu sheegay Robert Mugabe in si weyn ay u soo dhaweynayaan madaxda Afrika ee ka qayb qaadanaysa shirka u dhaxeeya Shiinaha iyo qaaradda Afrika dhanka Soomaaliya ayaa shirkaasi waxa loogu talagalay inuu ka soo qayb galo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balse waxa uu ka soo dib dhacay shirkaasi walow uu soo gaaray dalkani Koonfur Afrika isagoo shirka ay ka harsan tahay maalin kaliya balse madaxweyne Xasan Sheekh ayaa markii uu soo gaaray dalkani Koonfur Afrika waxa uu kulan la yeeshay madaxweynaha dalka Shiinaha Jinping markii uu kulanka ay yeesheen madaxweynaha Shiinaha iyo madaxweynaha Soomaaliya uu soo idlaaday ayaa warbaahinta ku hadasha afka dawladda Soomaaliya waxa wareysi siiyay Hadliye Cumar waxa uu sheegay heshiisyada ay la galeen dawladda Shiinaha waxay ahayd asumad uu ka helay inay sarkaan madaxda China wada hadlay sidii dhaqaalaha Soomaaliya sare loogu qaadi lahaa sidii China iyo Soomaaliya ay iskugu imaan lahaayeen waxa laga wada hadlay xagga kalluumaysiga waxa laga wada hadlay xagga beeraha
waxaa laga wada hadlayay xagga xoolaha, waxaa laga wada hadlayay strategic plan ee positionka ay Soomaaliya ku jirto.